السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا حسوس قر دختر أيدين قرتو إذن ديارسو دكتور هباق بوبال أي كسو ديارسو مقالة هرقيسا maalintii taariikhdu ahayd kowdii bishii labadii kun iyo 16 ayay timi iyadoo ballanteedii ka habsaantay oo dhowr bilood maqnayd markay timi waxay ii timi iyadoo wajigeedu isbedelo miisaan badan uu ka dhacay waxay igu tiri waan ka xumay inaan ballamahaygii aan ka habsaamay laakiin waxaan doonay cilaajaadkayga oo dhan inaad wiig gudahooda aad igu soo koobtid taas waxay ugu wacan inaan dhoofayo aanan soo noqonayn waxaan ka dareemay cadho badan iyo murugo badan ayaan hadalkeedii ka dareemay waxaan ku idhi mad fiican tahay baxaa dhacay waxay igu tiri hudheelkaygiina waan iibinayaa alaabtiina waan iibinayaa dalka kama shaqaysan karo Yurub bandoone inaan ku noqdo waxaan ku yiri waxa kugu wacan waxaas waxay igu tiri bulshadii xaasidnimadoodii iyo dhibtoodii ayaan ka bixi waayay uma adkaysan karo dhibaatadan bulshadayga haysata iyo xaasidnimadooda marka anigu dib baan u noqonaya waan iska dhoofaya taas wuxuu ahaa hadalkii ugubaad waxaan xasuusanay markay dalka ku soo noqotay waxay la timi han weyn iyo riyo weyn inay samaysato businessyada u gaara oo aad bay ugu faraxsanayd laakiin aakhirkii ugubaad way isdhiibtay waxay isu dhiibtay xaasidnimada dadka ay ula dhaqmeen haddaan ka hadalno xaasidnimadu waa maxay xaasidnimadu waxa weeyaan dareenka aad marmar qaarkood aad dareentid ee markaad dareentid adhaxda kaa jabinaya ee nabadgelyada iyo wanaaga wadnahaga ku jirana baabiinaya waxa weeyaan dareen u eeg gargaro dabo laabtaada ka oolalaya oo ku gubaya waxa weeyaan xaasidnimadu dareenka ku dhibaya habeenka hurdada ka kaxaynaya adigoo ka fakaraya qofkaad ka xum tahay oo rajaynaya inuu Ilaahay nimcadan u haysto oo ka qaado waxa weeyaan xaasidnimadu dareenka kugu wacan inaad si axmaqnimo iyo cadownimo aad u dhaqantid oo dadka aad caydid oo dib u geysatid xaasidnimadu waxa weeyaan su'aalkaas aad markasta isweydiinaysid wuxuu hebel iga lacag badan yahay maxay hablaaye iga qurux badan tahay wuxuu isagu ubad wacan u haystaa maxay aniga ubadkayga u xum yihiin wuxuu isagu magac u haystaa wuxuu isagu mansab u haystaa ma ogtiin mushkiladda xaasidku waa maxay mushkiladda bini aadamka xaasidka waxa weeyaan inuu yahay qof shakhsiyadiisu ay jilicsan tahay waa qof aan naftiisa ku kalsoonayn oo ku kalsoonayn nimcada Ilaahay iyo qudraadka Ilaahay wuxuu uu siiyay aan ku kalsoonayn waa qof aan lahayn ficil iyo iraadad iyo xoog lahayn sidoo uu sameeyo waxay dadka kale ay u sameeyeen sidoo uu gaadho horumarkii dadka kale ay u gaadhaan waa qof cuqdad iyo cudur ay ka buuxaan waa qof ka cadhaysan oo ka soo horjeeda xikmadda Ilaahay markuu arsaaqada dadka uu qaybiyay waa qof ilaaway Ilaahay markuu idhi am yaxsuduuna an-naasa ala ma ataahum Allahu min fadlihi صدق الله العظيم ما ogtan xaasidnimadu inay ahayd dambigii ugu horeeyay ee adduunka la sameeyay maalintu ibliis uu ka xumaaday aadam uu xaasiday oo sababtan ugu wacneed inay malaa'igtu u sujuuday aadam oo isaga ay u sujuudi weyday ma ogtin sababtu aadam uga soo baxay jannada waxay ahayd xaasidnimo uu xaasiday ibliis oo ku yiri geedka ka xun soo jannada uga baxo ma ogtiin dambigii dilka ee ugu horeeyay bini aadam la dilay waxa ka dambeysay xaasidnimo markuu qaabiil walaalkii haabiil uu xaasiday uu dilay ma ogtiin sababta uu nabi yuusuf aabihii uga fogaa 40 sanadood waxa ka dambeysay xaasidnimo ay xaasideen walaalihii yuusuf oo ceelkii ay ku tuureen ma ogtiin inuu dagaalo far badan oo dalalka dhexmara oo ummadadan ay ku rogmadaan oo boqolaal dad ay ku dhintaan in marmar qaarkood ay xaasidnimadu ay ka dambayso oo waxba aan la soo ogolayn ma ogtiin inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri xaasidnimadu waxa weeyaan cudurkii umamkii hore ma ogtiin inuu nabigu uu kale uu yiri iimaanku iyo xaasidnimadu wadna bini aadam isuguma iman karaan ma ogtiin inuu nabigu yiri sifadaha ahli janna waxa kamida inay yihiin wadnahoodu nadiif uu yahay oo aanay xaasidnimo wadnahooda aanay ku sidin marmar qaarkoodna xaasidnimadu waxay ka mamnuucaysaa ay ka hor istaagaysaa ay ku diidaysaa wanaag badan aad heli lahayd iyo asxaab far badan iyo fadli badan oo noloshaada ku soo kordhi lahaa ay xaasidnimadu marmar qaarkood ay ka hor istaagaysaa zamankii rasuulka nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa waxa dhacay nin baa jiri jiray la oran jiray Abu Jahal wuxuu ahaa nin nabiga nacab oo markasta ka xum oo dhibi jiray ninkaas wuxuu sameyn jiray habeen kasta intuu tago ayuu guriga nabiga hor istaagi jiray iyadoo aan cidna arkayn markaasuu quraanka uu dhageysan jiray uu nabigu akhriyo jiray markaas markuu dhageysto ayuu ku nasan jiro qalbigiisa iyo maankiisa uu ku degi jiray maalin maalmaha kamida ayaa nin kamida gaalada
gaaladii quraysh ayaa wuxuu arkay abujahal oo nebiga moxamed gurigiisa ag taagan qur'aanka dhegaysanaya wuxuu ku idhi ma qur'aankii nebi moxamed ayaad dhegaysanaysaa markaas wuxuu ku idhi haa wuxuu ku idhi haddaba macnihii waxa weeyaan nebi moxamed waad iimaansan tahay oo qur'aankiisuna waxaad iimaansantahay inuu xaq yahay wuxuu ugu jawaabay wallaahi waan ogahay inuu nebi moxamed dacwadiisu ay xaq tahay qur'aankiisuna uu xaq yahay si fiican baan taa u garanayaa wuxuu ugu jawaabay haddaba maad iimaantid nebi moxamed wa ashahaadatid ana laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah wuxuu ugu jawaabay anigu waxaan ahay qolada layidhaaho bani makhsuum nebi moxamedna waa qolada layidhaaho cabdimanaaf iyo bani makhsuum tartan bay galeen tartanka ay galeen mid kasta wuxuu ku tartamayay inuu noqdo qofka kelmadda leh maka xukumaya ee laga dambaynayo markaas waxaan ku tartannay in markii xujaajku ay imaadaan aan waraabino oo cunto aan siino markii dambena waxaan ku tartamnay qofka kacbadda nadiifinaya ee hagaajinaya ee habaynaya anagoo sida u tartamayno oo midna ka kale ka guulaysan waayey ayaa hadhowtana ay la soo baxeen cabdimanaaf inay leeyihiin nebi ayaa naga soo dhex baxay iyagu haddii nebi haystaan anaku nebi ma haysano marka maanta haddii nebi moxamed aan raaco oo aan aamino waxaan xaqiijinayaa inay cabdimanaaf ay naga fiican yihiin oo ay naga sareeyaan wallaahi weligii ma aaminayo oo dacwadiisana weligii ma raacayo sidaas buu idhi abujahl taas waxay ugu wacneed abujahl inuu khasaaro aakhire iyo adduunba inuu khasaaro waxaasidnimadiisii ayaa ka mamnuucday ama ka hor istaagtay wanaag iyo khayr badan uu heli lahaa ma ogtin xaasidnimada aad marmar ama xumaantaad marmar aad dareemaysid inay adiguun ay ku dhibayso oo qofkan aad ku xumtay dhibtaas inaanay gaadhaynin waxa dhacay mar laba nino oo walaalo ah ayaa mid wuxuu lahaa xoolo badan iyo lacag buu lahaa ka kalena xoolo muu lahayn marka ka miskiinkii xoolaha aan lahayn ayaa ka kale ayuu xaasidi jiray uu ka xumaan jiray kaas wuxuu lahaan jiray ganacsigaas oo safaro tegi jiray oo awrar badan baa markasta u iman jiro oo xariir sida iyo cadaro sida markaasuu magaalada uu ka iibin jiro lacag badan uu ka heli jiray maalinba kii xaasidka ayaa wuxuu go'aansaday walaalkii inuu ganacsigiisa uu ka baabiyo uu ka burburiyo markaasa wuxuu u tegay nin dadka xaasida oo ishiisu kulushay oo taa ku caana wuxuu ku idhi waxaan doonayaa ganacsiga walaalkay markuu imaado inaad xaasidid oo il aad ku dhifatid siday uga baaba'do markaad intay qabatidna lacag badan baan ku siinayaa ninkii wax xaasidi jiray ayuu ka haystay markaasaa buur bay dul istaageen markaasaa wuxuu ku idhi waa taas ay soo socoto awrarkii ganacsiga walaalkay siday markay soo dhowaato il ku dhifo oo xaasid siday uga baaba'do ninkii wax xaasidayba wuxuu ku idhi waxba ma arkin meeday awrtan aad sheegaysaa markaasuu wuxuu ku yidhi waata xalkaas ma aragtid wuxuu ku idhi alla indhahaagu fiiqana oo fiicana anigu midh ma arko maxaan jeclaan lahay inaan indhahaagu kale aan yeesho oo sida fiicanad wax u arkaysid aniguna wax u arko markiiba ninkii ayaa wuxuu dareemay indhuhu inay xanuunayaan oo indhihiiba markiiba madoobaaday oo markiiba wuu indhabeelay isaga ayay xaasidnimadiisii dib u geysato oo indhabeelay laakiin walaalkii xaasidnimadiisii may gaadhin ganacsigiisii iyo awrarkiisii siday xariirta iyo cadarada siday waxbana kumay dhicin oo si nabadgelyaha ayay u socdeen su-aalka ninka isweydiinana waxa weeyaan qof kasta wax maxaasidi kara anigu wax maxaasidi kara adigu wax maxaasidi kartaa xasan albasri wadaad caana buu ahaa waxaa la weydiiyo lagu idhi qofka mu'minka wax maxaasidi kara wuxuu ugu jawaabay subxaan allah maa ilowdeen walaalihii nebi yuusuf laakiin haddaad xaasidnimo aad dareemtid iyo xumaan wadnahaaga ku qari oo ha soo saarin ibni taymiyana waxaa lagu idhi bini'aadamku wax ma xaasidi karaa wuxuu ku jawaabay qof ilaahay uu abuuray oo wax aana xaasidin maba jiro laakiin qofka gobka ee geesiga xumaantaasi xaasidnimadaas wuu qarinayaa qofka doqonkaana wuu muujinayaa wuu soo saaraya oo dadka ayuu marna caayayaa marna uu dhibaato u geysanayaa markaas taladan maanta idiin soo jeedinaya waxa weeyaan haddaad xumaan dareentid haddii xaasidnimo wadnahaaga gasho waxa ugu horraysa aad samaynaysaa waxa weeyaan wadnahaaga ku qari hadhowtana shaydaanka iska naar talabaad waxaad xasuusataa nimcadaha fara badan uu ilaahay ku siiyey ee dadka kale aanu siinin waxa kale aad xasuusataa xaasidnimada iyo xumaanta aad dareemaysaa adiguunbay ku gubaysaa ay ku dhibaysaa qofka kale waxbana ma gaadhayso dhibtan ku haysana ma dareemayo waxa kale aad xasuusataa
inay xaasidnimadan ay tahay kasoo horjeed aad kasoo horjeedid ilaahay cadaaladiisa iyo xukmigiisa markuu arsaaqada ilaahay dadka uu qaybiyey oo taasuna ay dembi ay kugu tahay waxa kale aad samayn kartaa waxa weeyaan qofka aad ka xumtay ama aad xaasidaysid markaad aragtid wanaaji oo hagaaji oo salaam oo si fiican ula dhaqan taasu shaydaankaaga ay ka xanaajinaysaa waxa kale waxa weeyaan aad samayn kartaa markaad xasuusatid aad istiraahid xaasid u ducee oo ilaahay u bari inuu ilaahay u barakeeyo wanaaggan iyo nimcadan uu haysto markaad kulan fadhidid ama majlis aad fadhidid dadkana dhex fadhidid ammaan oo hadal xum ha ka sheegin oo hadal wanaagsan qofkaas si kastoo uu dareenkaagu yahay waxay noqonaysaa in dareenkaaga aad ka adkaatid oo aanad muujin xumaantan kugu jirta oo shaydaanka markasta aad iska naartid taas weeyaan wax kastoo ku saabsan xaasidnimada waxaa xasuusataan xaasidnimada iska ilaaliya oo aan isku dayno inaan ka adkaano nafteenna iyo xumaanta nafteenna geli karta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.